hargaysa waa caasimada Soomaaliland in ka badan 27 sanadood waxay xornimada ka qaadatay Soomaaliland gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1960kii haddaba magaalada Hargaysa waqtigaasi waxay ka koobnayd guryo aad u kooban guryahaasi oo ay kamid yihiin buulkii Soomaaliyeed ama sida loo yaqaan baybayga iyo sandaqadaha iyo guriga lagu hoos dhisi jiray geedka hoostiisa waqtigaasi aad ay ugu yaraayeen magaalada Hargaysa iyo dacaladeeda adeegyada aasaasiga caafimaadka ayadoon xilligaasi dadka ku dhaqan magaalada Hargaysa iyo dacaladeeda ay wax caafimaad heli jireen ayagoo isku daaweyn jiray dhirta noocyadeeda kala duwan amniga ayadoon xilligaasi jirin wax amniga isla markaasina ay ka socdeen geeyiga Soomaaliland dagaalo kala duwan oo u dhaxeeyay dawladii kacaanka Siyaad Barre iyo ururkii Islam waxbarashada ayadoo ay dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargaysa iyo dacaladeeda waxbarasho ay heli jireen isla markaasina dhalinyarada xilligaasi jirtay ay wax ku baran jireen geedaha hoostooda ayagoo ku fariisan jiray daasadaha ama dhagxaan mana ay haysan waxay wax ku bartaan buug iyo qalin ayagoo wax ku baran jiray loox iyo khad biyaha ayadoo dadweynaha xilligaasi dhaqan ayna heli jirin wax biyo isla markaasina ay xaafadooda soo gaari jireen ayagoo biyaha u doonan jiray meel masaafo dheer u jirta si ay biyo u soo qaataan mana ay haysan waxay ku soo qaadaan isla markaasina ay soo xambaari jireen haddaba dayacaasi iyo kacaakufkaasiba waxa uu socdo maalinta ka dambaysa magaalada Hargaysa waxa ku sii kordhayay guryaha dhagaxa iyo fawyada dhaadheer ee laga taagayo magaalada Hargaysa iyo dacaladeeda saacadda ka dambaysa magaalada Hargaysa waxa laga taagayay guryo wada kala duwan oo bilicdii magaalada Hargaysa kor u qaaday ayadoo ay magaalada Hargaysa waqtiyadii hore ay ka koobnayd guryo aad u kooban waqtiga xaadirkana ay ka kooban yihiin guryo aan aad loo soo koobi karin dhanka kale waxa iyagu meeshii ka baxay adeegyada aasaasiga caafimaadka amniga waxbarashada iyo biyaha oo bulshada ku dhaqan magaalada Hargaysa ay helaan magaalada Hargaysa waqtigii hore waxa loo oran jiray tuulada magaalada Hargaysa waqtiga xaadirkana la yiraahdo caasimada Soomaaliland ee magaalada Hargaysa kusoo wada duuba magaalada Hargaysa degmooyinkeeda iyo goboladeeda waxa ku soo badanaya fooqyada dhaadheer ee laga taagayo Naasir Abdulqaadir Abdi Wahab Naasir Talasame Badcas TV Hargaysa